deeq lacageed oo gaaraysa $4,350 ay iska soo ururiyeen muxsiniinta Soomaaliyeed ee ku dhaqan wadanka Mareykanka gaar ahaan gobolka Minnesota ayaa hay'adda American Somali Relief Agency u qaybisay 87 qoys oo kamid ah qoysaska danyarta ee ku dhaqan magaalada Buurtinle si ay u gutaan waajibaadka bisha barakeysan ee Ramadaan waxaana halka qoyskiiba lagu gaarsiiyay $50 iyadoona ay goobjoog ka ahaayeen xubno kamid ah golaha deegaanka degmada Buurtinle culimo u diin nabadoono iyo dhalinyaro حسين أحمد عبد الله وكيل كهيئة أمريكان سومالي ريليف أجنسي iyo maxamuud qani maxamuud xasan oo kamid ah qurbajoogta Soomaaliyeed ku dhaqan wadanka Mareykanka gaar ahaan gobolka Minnesota iyo waliba sidoo kale maamul Cabdi Kaafi oo kamid ah guddiga deeqdan lacageed gaarsiiyay dadkan danyarta ayaa ka warbixiyay deeqdan meelaha ay ka soo gaaray dadkan waxa ayna sheegeen inaysan noqon doonin mid ugu dambeysay waxaan isugu nimid in ay nala ogaadaan odayaasha iyo deegaanku deeq ay keentay hay'adda American Somali Relief Agency oo aan wakiil u ahay hay'addaas oo deeqdaas ku saabsan afurin ay ka faa'iideysanayaan qoysas agoon ah iyo qoysas kale oo danyar ah gaarayaan adigu 87 qoys runtii dadkaas hawshaas sidii loogu talagalay ayaa u dhacday indhihiinana aad ku aragtaan American Somali Relief Agency waxay u taagan tahay horumarinta deegaanka runtii waxay ka shaqeysaa barnaamijyo waxyaabo badan ka shaqeysaa waxa ugu badan ay ka shaqeysana waxa kamid ah waxbarashada gaar ahaan kuwa tacliinta sare oo kale wax weyn ka qayb qaadata sida iyaguba ay soo amreen oo ay noogu soo gudbiyeen dadka agoomaha waayeelada danyarta in loo qaybiyo lacagtaas marka waxay ahayd $4,350 waxaa ka faa'iideysanaya insha Allah dad ah 87 qoys oo qofkiiba $50 yahay maanta marka waxaan iskugu nimid in aan hawshaas ay nala wadaagaan odayaasha sadaqadan bisha barakeysan ay Ramadaan la rabo in maaragtay lagu sadaqaysto inaan marqaati ka noqdo oo aan arko horta aad baan u faraxsanahay waxaan waa wax sadaqa ah oo dad muslimiina Soomaaliyeed bixiyeen oo wadanka Mareykanka gobolka Minnesota oo anigu aan ka yimid weey sadaqadaas ma aha wax badan sida inii sheegeen cadadkeeda waad maqlayseen waa wax yar oo loogu talagalay tabartu markii bilow ah waxayna soo marsiyeen hay'addan Somali American Relief Agency amsor oo halkan uga jeedaan baa wakiilka ahayd oo lacagtan iyadu soo dirtay dadkan insha Allah hay'addan ma aha markii ugu dambeysay waxay noqonaysaa markii ugu horeysay sidoo kale Sheekh Cabdirasaaq Caqiido ayaa ku dheeraaday ajarka ay leedahay sadaqada la baxo bisha barakeysan bishaan bil barakeysan way bilaha kale waxay kaga duwan tahay sadaqooyinka la bixiyo bilaha kale way ka badan tahay sadaqada la bixiyo bisha Ramadaan dambiga la galo sidoo kale bisha Ramadaan bilaha kale la galo waxa ka weyn dambiga la galo bisha Ramadaan sadaqadu waa la socotaan waxa way Ilaahay subhanahu wa ta'ala hal ayad baa nooga filan مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء إلهي سبحانه وتعالى وحليه كوى الصدقة لبحية ووحوضا أي كل دين هنتدودا أي كل دين لبحية وبنقيدا الله سبحانه وتعالى دقنية إلهي سبحانه وتعالى وحي لمديهم بليات صاروا كبحلية كمثل حبة روح معناها مسجد لك كبيري حبة مسجد هل حبة waxa weeye macnaha waxa weeye masaga dhulka ku riday yaani xabadaasna ay soo saartay 7 sanaabila yaani 7 sabuul ay soo bixisay ugu dambeyntiina qaar kamid ah dadkii ka faa'iideystay deeqdan lacageed ayaa uga mahad celiyay una duceeyay dadka walaalahooda ay u soo diray Allah barakeeyo khayr Allah siiyad aakhirana la tibigoodi dhaaf اللهم صل على سيدنا محمد فاتح هذا صادري بانو مهد علينا او مسلمين تاها الهي انو اجر كيري حسنات كيري ويسن سيجن اما يون كالو باهن yahay midigta ka siiyo masuubada aakhiriya mid adduun bana uu kaga qabto ilaahay idankiisa annagana noo calfo guuleysati jaamac warbaahinta dawladda Puntland Buurtinle